inuu idili doono mustaqbalka ayaan uga shakiyay. Aniga waa dilay si ula kacaan u dilay. waxaan ku dilay lameel simno aqraab u arkay wana 16 baalooto ayuu ku dhiftay iyagoo waxba ka hadleen bilaa sabab. dagaal ma jiray xanaaq maxaa ka keenay wax dagaal oo ka dhaxeeyay maalmahaas ma jiraan waxa yiri wax awlaad ama wax oo dhibaato ah oo dhaxdiina ka dhaxdhalata ma jirtaa wuxuu yiri xitaa ugu yaraan hal maalin ma wada hadlinu dhaani ninkaas ninkaanu nabad dilaa ku kacanay nin qalqalsanaad ahayd Soomaa waa naxday waa soo boodi ma qalqalsaneen caadi ah warkii waa jooganay xarowgii balwadiisu ahayd tubaaka balbalka lagu maceeyo magaada askarta carajiifka laahna kaga tilmaamnaa deganaan afgaabni iyo cibaado ilaa ay ula baxeen naanaysta alcadaala ayaa mar qura wajiga u bedeshay ciidankii uu ka tirsanaa wanaagii lagu yaqaanayna ku qatimay xinjiro dhiiga kadib markii habeen ramadaan ahayd uu nafta dhaafiyay laba ka mid ah saaxiibadii difaaca kula jiray oo hadal dhex maray iyo xurguf kala dhaxaysay aysan jirin waxaase la yaab leh in falkaasi filan waaga ah alcadaala qudhiisa uusan ka jawaabi karin sababtuu uu dilay iyo waxa uu ku maagay aniga dadka waa dilay waana si ula kaca soo istaagay waa dilay waxaan ku dilay lameel waxaan ku dilay qof adiga simno aqraab u arkay wana dabla xooga daahir maxamed xuseen alcadaala oo ka tirsan guutada 77 shaqada qarankana u joogay degmada Ceeldheer ayay ka qabatay inuu dilo saaxiibadiis ka barbar dagaalamay isagoo si falaxun naftu u dhaafiyay marxuum X dabla xooga raaga tooxo maxamed iyo marxuum X kormeere koowaad booliis Cabdullaahi Umar Raage oo hurda kuna dhuftay 16 baalooto xilligaasi oo wax yar ka hor ay wada suxurteen eedeysanaha iyo labada marxuum waana gudaha saldhigga degmada Ceeldheer 6 bishii 3 ee sanadkan mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedeysanahan iyo xafiiska xiraarinta wuxuu ku soo eedeeyay inuu dil bareer ah u geystay Allah una xariistay laba marxuum oo la kala yiraahdo marxuum X dabla xooga dalka Raage tooxo maxamed iyo marxuum Bool Cabdullaahi Umar Raage eedeysanahan labada marxuum ayaa wuxuu ku dhiftay 16 baalooto marka hore waxa goobta ku geeriyooday Allah una xariistay marxuum Cabdullaahi Umar Raage oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed kadibna waxa dhaawac ahaan loo soo qaaday Raage tooxo maxamed oo ku geeriyooday isbitaal Digfeer mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waqti ay tahay saxuurtii xilli la saxuurtay kadib eedeysana daahir wuxuu go'aansaday labada marxuum ee dhimatay in uu dilo iyagoo waxba ka hadleen bilaa sabab ku marka hore iyagoo jiifaan u yimid wuxuu ku dhiftay xabado ku furay 16 baalooto ayuu ku dhiftay oo ku leeyahay labada marxuum wax dagaalo igala dhaxeeyay ma jirin waxaan uga shakiyay nafteyda inay idili doonaan marka hore waxaan dilo leeyahay marxuum Allah una xariistay Cabdullaahi Umar Raage kadibna waxaan go'aansaday uu leeyahay maadaama ay saaxiib lihiin Raage inaan ku daro labadii marxuum saasoo ku dilay taliya unuga eedeysanaha oo ku soo baxay xabadihii tirabeelka ahaa ee lagu dilay marxuumiinta iyo askar kale oo goobtaasi ku sugnaa ilaa ay haddana la fariirsan wixii uu falay saaxiibkood xirowga ahaa ayaa marag ahaan fadhigan loogu dhageystay saldhiga unugta ku qorana aniga taliya unugu ahay bacda suxuurka bacdi waa falka markuu dhacayo aniga waardiya saarnay waxa ka war hela xabada baas oo dhacayo hadaa soo fiirshay xirada dhexdeeda ka dhacay waraa xabada ka dhaaf ciidanka askarana ma hajiiftay daahir waxa jiifay sheegan Raage tooxo iyo Cabdullaahi war ciidanka xabada ka dhaaf anoo dhahayo qeelaha soo degtay ninkan waa ku sii wadi xabada soo ku wada ka jooji anoo dhaha qoray soo dafay qoragii ku qabtay gadaal iga orday guriga oo inuu gadaal u gal rabay asgiri jiifay qolka ilidiis oo ismaaca taliira gadaal ka qabtay inagada heshiis ku yimid oo dhabiiray haddoo qabta sidii aan ku qabana waajibkii taliya unugnimo ay saarneed waa iska guday taliya ururka ku wareejiyay markaas saasa ugu bax saddexdooda maxaa u dhaxeeyay wax dagaal oo ka dhaxeeyay maalmahaas ma jiraan intaas oo kula shaqeynayay say ahayd dabeecadiisa iyo tacaamulkiisa iyo qaabkiisa ah nin iska degan oo askarta jeceshahay oo xaafid quraana oo quraankiisa iska akhristo oo ahay oo shantiis salaad dugto wax caqabada iyo dhibaato ah ku arki jira ma jiraan su'aal ma weydiisay dadka markuu dilay ka jooji maxaa u dilay marka ku jawaab ma siin gadaal iga ordaba soo qoray ugu haya haddii waxa uu disha dhaan wuxuu waa dilay walxa ahaan waa ka weynay daahir adi waa taqaanaa qaab dhaqameedkiisa nin balwad leh ma yahay nin balwad leh ma ahan balwadiisi ma aniga balbal mid wax la yiraahdo ku arkay ma wax kale oo ka dheeriye ku arkay ma jirto wax xanuun ah ama maskaxiyan ah ama horaad u aragtay ma jiri maya Cabdalla daahir markuu dilay labada marxuum xagaa joogtay degmada Ceeldheer joogay meeqa saac ma leeyahay
toban saac oo 4 daqiiqo dhimanayay ma hurdaysay mise waa soo jeed waa hurdayna xabadaha ku kaca maxaad aragtay marka ninkaanu nimanka dilaa ku kacanay yarka markaa taliye unuga wuxuu yiri nimanka ka daa xabada ka daa uu yiri war waa diiday taliye unuga baalka soo orday xabado kor u riday ninkaanu gadaal u socdo ay ugu imaad aniga meel darbiga ku jiro marka darbigana ku jiro ugu imaaday ninka sidee ku qabta marka adaa qabtay anaa qabta ha markaa qabata xabad muu riday taliye unuga bursaay markaas qoriga laa kabacdi waa diiday qoriga asoo gadaal u socdo anoo darbi ku jiro ugu imaaday waa qabta adiga ninkan aqoon hore ma u lahayd aqoon hore gooni uma lahayn adiga waa ururka askar tirsan kaliya inta saldhiga joogteen soo ahaa nin noocee ah xaaladiisu waa un fiicnaanin soomayo salaadiisa dukanayo oo quraankiisa akhrisanaayo hadda wax kuma ogeyn anigu gooniye balwad ma leh balwad seerka ku ogaa laakiin wax kale oo dheeri kuma ogeyn ciidanka ninku dhex jira miyuu ahaa mase nin gaarjoog ah ciidan ku dhex jiro ahaa oo hortiis iyo kooxdiisa iyo unugtiisa ku dhex jiro ahaa daahir oo xabadaha nin ku wada labada marxuum oo xabadaha ku dhacayaan adiga ma arkeeni waad jiiftay Soomaa waa arkay aniga xabadaha gooni ma dilay xabadiya ku kacay hadii aan soo kacay waxa arkay ninkaan oo nimanka kor taagan nimanka dilay xabadaha markad ku kaceysay nin qalqalsanaad ahay Soomaa waa naxday waa soo boodi ma qalqalsanin caadi ah warkii waa jooga aniga wax ka dhaxeey oo colaad ah oo adiga aad ogtahay ma jira ma waxaad leedahay ninkaan oo labadaas nin oo iska jiifto ninkaana soo kacay xabado ku furo waa dilo kaliya wax sabab ah aad ogtahay ma jirto ma jiraan ma hadsanta sawirada marxuuminta waa kuwana marxuum Cabdullaahi Cumar Raage iyo Raage Tooxo Maxamuud Cabdullaahi Cumar Raage oo ka tirsan ciidanka booliiska Hirshabeelle goobta ayuu ku geeriyooday halka Raage Tooxo Maxamuud oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo qaaday dhaawiciisa isbitaal Digfir dhaawici ayuu u dhintay labada marxuum wuxuu ku dhiftay 16 baalooto waa kaas qorigii eedeysanuhu uu dilka ku geystay qora AK47 ah uu leeyahay Daahir Maxamed Xuseen Cali warqadii isbitaal Madiina ee kaga soo warbixiyeen dhibka ku yaalo iyo xabadaha iyo qaabka u dileen u dhinteen labada marxuum hal maalin xitaa ma wada hadlin eedeysanaha iyo marxuumiinta uu dilay shaki kaliya ayuuna qabay sidaas waxa maxdarkan ka sheegay baarihii kiiskan gacanta ku hayay oo ka socday taliska sahanka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalka waxa yiri wax oo colaad ah ama wax oo dhibaato ah oo dhaxdiina ka dhaxdhalata ma jirta wuxuu yiri xitaa ugu yaraan hal maalin ma wada hadlin u dhaani ninkaas inta kadib habeenkii falka uu dhacayay waxa is ag jiifay labada marxuum markii la suxuurto kadib intuu soo istaagay qorigii soo qaatay oo baaloota ku riday 8 kamid ah waxay ku dhacday marxuum Cabdullaahi Cumar Raage halka 3 baalood kalena ay ku dhacday Raage Tooxo Maxamuud oo xiligaas dhaawac ahaan xamar loogu soo qaaday wuxuu isbitaalka Digfir ku geeriyooday taariikh markii ay 17 bishii 3 2026 wuxuu diyaar u ahaa eedeysanaha inuu dagaal kala sii galo asigii iyo marqaatigii koowaad is hortaagan ilaahay waxa soo meesha ka soo bixiyay marqaatiga labaad oo intuu usoo gagaatamay eedeysanaha gadaal intuu ugu imaado isku duubay kadibna sidaas lagu xiray wax shaki ah oo shabaabnimo quseeya nooguma soo bixin laakiin arinka dhacay kiiska dhacay kiis la yaab loo noqday sida darteed wax shabaabnimo oo iiga soo baxay ma jira ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaan la dhexe Maxamed Xuseen Cumar Sanay ayaa garsoorka weydiistay in eedeysanaha lagu xukumo dil toogasho ah qisaasta marxuumintii ku baxay gacantiisa wadaha gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanahani wuxuu dil bareer ah oo si kas oo wala kac ah u geystay Allah u naxariistay labada marxuum ee kala ah marxuum XW xoogga dalka Soomaaliyeed Raage Tooxo Maxamed iyo Allah u naxariistay marxuum Karmale koowaad oo ka tirsan ciidanka booliiska Hirshabeelle Cabdullaahi Cumar Raage wuxuu leeyahay labada eedeysane mid kamid ah oo ah Cabdullaahi Cumar Raage waxaan uga shakiyay leeyahay nafsadeeda inuu idili doono mustaqbalka ayaan uga shakiyay intaas kadib waxa dhacday inuu Cabdullaahi dilo Raagana uu ku daro asigoo soo qaatay tababar ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo soo tababaray inuu cadawga ummadda Soomaaliyeed la dagaalamo uu dilo ayaa tababarkii la soo siiyay wuxuu kula soo jeestay askartii asiga carada la jiifto walaalihiis ah oo dadku ugu dhawaa waliba iyagoo jiifo haddii ay ogyihiin labada marxuum in askarigani iyaga la saxuurtay oo ciidanka kala tirsan inuu dili doono haddii ogyihiin iyagu ma jiifteen halka isagu sheegay inay dil rabeen mustaqbalka mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda hor keenay marqaatiga koowaad ee lagu magacaabo Cabdikariin Cali Caraale wuxuu maxkamadda horteeda ka sheegay dilkaasi inuu geystay Daahir Maxamed Xuseen Cali waliba si bareer u geystay oo asigoo qorigii haysto inuu dagaalamo rabo gadaal laga qabtay
sidoo kale waxaan maxkamadda hor keennay cismaan cabdulaahi cismaan oo ah markhaatiga labaad ee ku soo kacay eedeysana daahir asigoo labada marxuum xabadda weli ku wada kabacdi wuxuu sameeyey maadaama cabdikariin qorigii uu ku hayo qoriga dhig oo leeyahay cismaana gadaal ka soo wareegay oo isku duubay eedeysanaha sidaasaa lagu qabtay weli wuxuu rabay inuu dagaalamo mudana guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan si cad u caddaynay oon shaki ku jirin in dembi dhacay eedeysanuuna yahay qofka gale si waafaqsan qodobka 163 xeerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in eedeysane daahir maxamed xuseen cali ay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii labada marxuum oo dilay waliba si degdeg ah loogu fuliyo maadaama oo ciidanka qalabka sida muuqaal xum oo sawir xun uu ka bixiyay maxkamadduna waa mahadsantahay qareenka eedeysanaha ayaa muwakkilkiisa u codsaday in laga qafiifiyo ciqaabta maadaama uu qiraal yahay loona fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya وبعد السلام مقعي وأوقاتي عبد القادر عثمان وحان قرين وهي ظاهر محمد حسين علي مدن قدومي قرصوريال محكمة شرفت له موكل كيغا ظاهر محمد حسين محكمة وحسك الشيغي وي مقليس ايداس يقاب كدل كاسو دعي iyo meesha la joogay waxay ahayd daahir dagaal ma jiray xanaaq maxaa ka keenay laba qof jiifto hurdeyso wax ka dhaxayna jiran daahir inuu dilo maxaa ku kalafay in baaras lagu sameeyay mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh dil inuu dhacay la isku haysto inuu daahir geestina la isku haysto anagoo doodaan ku badanaynin waxa codsanayaa muwakkilkayga maxkamadda awoodeeda waay 118 inay baaris samayso maxayal wax la isku haysto waa dil ninka geestina waa daahir hada si la sheegay qodobada oo xafiiska xeerlaalintaas ku soo eedeeyeen waxa codsanayaa inaan qodobadaas sharciyan maxkamadda ay ka qafifiso maxkamadda sharafta leh way mahadsantahay intaas aad maqlaysay maxaa kaaga baxay waa dilay si ula kaca u dilay wax dacwo oo aan hadda ka geysaayo ama kala ma jiraan lama codlays ma jiriyo aniga waa dilay si ula kaca aan u dilay xal laga helay maxaa sababay inaad dadkan inaad disho aniga dadka waa dilay waana si ula kaca waa soo istaagay waa dilay waxaan ku dilay lameeli waxaan ku dilay qof adiga simino aqra abu arka wana ma hore kula murmeenay wax murna ila ma geysan xabadaha ari dameeqay ahaayeen oo aad ku riday kulli aniga markaas aniga aan xabadaas aan aniga ku riday kulli abada 13 baaloota 14 baaloota milaas xabada aan qiyaasanayay ha cusana marka codsiga waxa laba nin oo raga igu maqan kitaabka wuxuu ii soo qeybay 114 qabaa gaashaanla sare Cabdullaahi Shadar oo ka tirsan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka Muqdisho.